إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات. 8 لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه 8. 8 قفك إني صومران ولا مارمان أرنا لغا فرصان كريوي سرور وهم فرحتان فرح وفرحه يورور يمرغو ومرغوده لبدا سبا قفك الدنيا انتو جوغا وا سومريان واجتماع وفرقه عيدو جعل يahay inuu la kulmo oo meel ay isugu yimaadaan iyo cidaas in la kala kaxeeyo musiibatu dunya musiibatu al-maut ama masaa'ibta kale adduunyo ay kala kaxeeyaan wa usrun wa yusrun xaalad adag iyo xaalad fudud labadaba inuu maro thumma suqmun wa aafiya xanuun iyo caafimaad qab 8daasi qof walo adduunyadan dusheeda ku nool waa shaki la'aan inay marayaan ثم اعلم أيها العبد المسلم أن البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه فإن كان في إيمانه صلابة زيد في بلائه وإن كان في إيمانه رقة خفف في بلائه حتى ما ينجلي عنه البلاء ويذهب إلا وقد حطت خطاياه كلها ويمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ضدك الدنيا جوغا iyadoo dhammaantoodba musiibooyinku ay ku dhacayaan waxay masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo kadeedka adduunyo u kala badsadaan siday u kala iimaan badan yihiin. addoonka waxaa imtixaanka loo joojinayaa inta iimaanku uu joogo. hadduu iimaankiisu xoog badan yahay imtixaanka lagu kordhinayaa iyadoo khayr la doonayo in inta dembiyana laga dhaafo darajooyinna kor loogu qaado. hadduu iimaankiisu daciif yahay balaayooyinka iyo masaa'ibta iyo sharka iyo dhibka adduunyo ayaa laga khafiifinayaa dabeetana dembigiisa isagoo xambaarsan darajana kor aan loogu qaadin ayaa allaha raxmaanka maalinta qiyaame la horgeynayaa. ayuha almuslimuuna cibaad allah qofka muuminka ah ee adduunyadan dusheeda lagu imtixaamo ee sabirka ilaahay ajar kaga doona waxa balaayooyinkaasi ay ka faydmayaan iyadoo wax allaale wixii dembi uu sameeyey laga hoobiyey oo laga dejiyey. waxaanu dhulka dushiisa soconayaa isagoo dembi ka maydhan. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء. وحا رسولك الويديي ذاتكنا الدنيا دشيدة جوغا كيبا ugu امتحان بدن وامتحانك يكديدك iyo dhibaatada adduunyo u badan ay ku dhacda. قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنبياء ugu imtixaan badan oo imtixaanka u badan adduunyo dusheeda lagu mariyaa. kadibna waxa ku soo xiga dadka kuwa u wanaagsan kadibna kuwa xagga wanaaga kuwaasi ku soo xiga. ilaahay la shaka anbiyada inuu jecel yahay oo uu doortay. muxuu ilaahay u imtixaamayaa? ma inuu ciqaabu cadaabu xanuujiyaa u baqastigu وما إلهي خير بولا دونيا درجوين بو ربا إلهي ددك كلين وديريسيو. إلهي سبحانه وتعالى وحو ربا وحي صغائر يخلط دعي إنه ربي سبحانه وتعالى وكناف. قال عليه الصلاة والسلام يبتلى الناس على قدر دينهم. ددك والله امتحان يا دويدا انت جوغان امتحانك وحا لو جوجينيا هلك الدين تقفك ايو تاغنتahay فمن ثخون دينه اشتد بلاؤه. qofka diintiisu ay xoog badan tahay qara ay leedahay imtixaanka adduunyada lagu imtixaamayana waa badanaya. waman dacufa diinuhu dacufa balaa'uhu qofka diintiisu ay tahay mid taag daran iimaankiisuna uu hooseeyo imtixaanka adduunyada lagu marinayaana saasuu daciifu noqonaya. wa ina arajula la yusiibuhu albalaa xataa yamshi fi nnaasi wama calayhi khati'a. ninbaa adduunyada dusheeda soconaya isagoo wax dembiya aan lahayn sababtuna waxa weeye masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo imtixaanaadka adduunyadan dusheeda ku maray ee uu ku sabray ee uu ku ajar dalbay ayaa dembi oo dhan laga maydhay. miyaanay taasi noo caddaynan yaa cibaad allah mixanka iyo masaa'ibta
dhibaatooyinka iyo kadeedka adduunyo qofka muuminka ah ee arrinta noocaasiya garta ee sabir iyo ixtisaab ku qaabile ku soo dhoweeya inay dan u tahay oo dembigii lagaga maydhaayo darajooyinna kor loogu qaadaayo taasi waa inay ku dhaliso qofka muslimka ah masaa'ibta adduunyada dusheeda ku soo maraysiyo dhibaatooyinkeeda inuu ka dhigto fursad loogu dembi dhaafo darajooyinna kor loogu qaado inuu u arko inay tahay min raxmat illaahi tabaaraka wa tacaala calayh naxariisasho ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariistay nas'alu allaha subxaanahu wa tacaala an yakfira dunuubana ويعلي درجاتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم